waa bandhigga buug la magac baxay hogaamiyaha loo hanweeyay oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ee caasimadda oo deegaanada Soomaaliland. munaasabadda bandhigga buuggan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland, mas'uuliyiin ka tirsanaa xukuumadihii hore ee dalka soo maray qaarkood, mas'uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka, xubno ka socday golaha baarlamaanka Soomaaliland, siyaasiyiin madax bannaan, waxgarad, waayeel, aqoon-yahan, dhalinyaro iyo badi qaar ka mid ah lameynta reer Soomaaliland. furitaanka heesta calanka kadib waxaa madashan iyo furo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay nuxurka ku duugan buuggani Cabdikhaaliq Axmed Cismaan qoraaga buuggani la magac baxay hogaamiyaha loo hanweyn yahay. haddaan ku horeeyo wuxuu ku saabsan yahay buuggani buuggan maanta haddaan furkiisa joogno ama caawada furkiisa joogno waa buug muuqaal ka bixinaya bulshada reer Soomaaliland iyo hogaaminteeda waa dhigane tilmaam iyo tala ka bixinaya bulshadeena hoggaan noocee ah ayay u baahan tahay maxay jecel yihiin in lagu hago waxay u kalifay buugga hogaamiyaha loo hanweyn yahay ayaa ah inaynu wada jecel nahay cid kasta oo inoo haysa hogaaminta inay wanaagsanaato oo dalalka jaarka iyo ama dadka la midka ah hogaamiyaasha ah wax dheeraadaan oo baradhaafiyaan oo ka sareeyaan muhiimadda koowaad ee buugga u kaliftay ayaa taa caqabadaha iga hor mid intaan buuggan waday 3 arrimood baan ku koobayaa. kow hogaamin inaad wax ka qortaa maktabadaha Soomaaliland jira waan baadigo hal buug oo Soomaali oo kaliya nala hogaaminta ka horreeya iyo buugkaaga si waxa aad buug kale oo hogaaminta oo ka tixraaci karay ilaa waxaan adigu ma halabuuraysi ya waa wax aad tixraac ka sameynayso dad kaaga horeeya wax qoray marka dadka kaaga horeeya waxay qoreen inaad ixtiraamto oo aad akhrido wax weyn bay sameynaysaa marka caqabada ugu adag ee aan waajahay waxa weeyaan raadraaci iyo baaristii mawduuca hogaaminta aan ku sameynayay inaan ka helin buugaag igu filan oo waaqac ku saleysan hogaaminta. intaasi ka bacdi mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan qaarkood oo madashani ka hadlaya dhammaantood qoraa Cabdikhaaliq ku bogaadiyay qorista buuggan iyagoo si isugu mid ah uga hadlay muhiimadda buuggan leeyahay ay ka fahmeen ama ka fahan qaateen intii ay akhrinayeen buuggani waxaana mas'uuliyiinta ka mid ah Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, Abwaan Dhuxul Laab Saalax iyo Cabdikariin Axmed Mooge iyo mas'uuliyiin kale. ugu horeyn waxaan bogaadinayaa qoraaga buugga Cabdikhaaliq Axmed Cismaan oo runtii aanay islahayn da'diisa iyo qoraalkiisu anugu markaan soo koobo waxaan ku micnayn karaa da'diisa iyo qoraalkiisu inaan islahayn waxaan uga jeedaa buuggan qaybo kamida baan akhriyey waa buug runtii aqooneed oo si cilmi uga warramaya hogaaminta waxaa hubaala markuu gaadho da'da waayeelnimada inuu noqon doono khabiir weyn oo laga waraysto arrimaha hogaaminta marka walaalkay horta ha kala hadhi maanleeye idinkana waxaan idin leeyahay walaalayaal qof kastoo innaga inaga midoo dadaala oo wax qora waxa uu waxtara oo u dhiirigelinaya in buugga laga iibsado. hogaamiyayaasha waxaa loo kala qaadaa hogaamiye dalka iyo dadka jecel iyo hogaamiye hantida jecel iyo hogaamiye kursiga jecel. kan hantida jecel shirkad kasta iyo wax kasta oo dalkiisa ku soo kordha isaga isku qoran waa bukaas oo kale. marka dhinaca ka eegto halkii Maxamuud Xaashi deegaanka dhalinyarada iyo haddana mawduucu ka hadlayo oo halkii uu weyneed uu sirreysay ayuu maaragtay taabtay marka anigu ma akhriin buugga laakiinse taas macno badan sameyn mayso waxa buugga ku qoran macno sameyn mayso laakiin waxa macno sameynaya in hogaamiyanimadii muhiim la saaray oo uu ninka dhalinyaradu u arkay hogaamiyanimadu ay tahay mawduuc u baahan in buug iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba laga qoro. وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال وركم مقبهية عالم كبداستون فرتي في هرقيسة.